salaamaya taageerayaasha musharaxiinta iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ururka rays. marka labaad waxa weeyaan ururkani waa ururka dhalinyarada. marka waxaan u malaynaya inaan anigu weynahay. waxaan jeclahay haddii dhalinyaro ay halkaas soo wada istaagto oo la yidhaahdo ururkan waa wada dhalinyaro dhammaan aabahooda awaygaa loolan malaynaya. marka aabahood waa aniga 22 musharax xisbiga rays ururka rays aabahood waa aniga. musharaxa madaxweynaha u taagan ee ururka rays waxaan kala halkan ka salaamayaa dhammaan haweenka waalidiinta oday dhaqameedka dhammaan dadweynaha halkan isugu yimid ee sharafta leh miyigaha dadkooda waxaan sheegayaa ujeedada maanta kulankaasana tahay. ujeedada kulanka maanta waxa weeye in ururka siyaasadeedka rayska soo bandhigay musharaxiinta u taagan golaha deegaanka. taas ayuu maanta soo bandhigayay. ujeedada aan anigu u noqday musharaxan aniga oo weli ka taagan gobolka awdal degmada boorama weli ka ah gabadha kuraatee ka taagan. ujeedada aan u noqday waxa weeye musharaxnimada ma ahin kama cilmi badnin hadaha kale ee gobolka kama cilmi badnin maaha, laakiin waxa weeye sababta aan usoo noqday in aan wax ka bedeli karno gobolka maadaama intaas oo qof oo generation maanta wax soo bartay ay jiraan in bal aan change wax lagu bedelno aynu heli karno. waxaan anigu halkani ku dhashay aan samayn karo waxa weeye kor u qaadista bilicda magaalada Boorama. waxyaabaha ay qorshaysan ee jecelahay inaan gobolka ku bedelo هذه أعتقد تجري على طريقة أنها عشان تجري مكانة يحصل الفرق على نفسه تلقي الحفلات هذه الناس خلف كمان عن شغال هاي إن أقوى وحوية تجدوي أما هذا أبدا عن قصة طي كتير كويس يوحيبها يقول لي إن مكتئب نقرأ مشاركين كلها ديات تكمل دورنا. marka aan ku horay qodobka maaragtay ka hadlaya xisbiga ujeedooyinka aan ku doortay waxa kamid ah waa kow xisbigu wuxuu inta badan awoodiisa ama sharciyadiisa eegno wuxuu awoodda saarayaa xagga dhalinyarada oo runtii xilligan aad iyo aad loogu baahnaa 20 sano ama 22 sano ee Somaliland dhismayd waxa lagu jiray waadajin iyo dibweshiisiin iyo maaragtay ummadda soo keenay laakiin sababay ka sano kadib waxay gaadheen xilliga dhalinyaradu ay mas'uul noqon lahaayeen xilkii ay qaban lahaayeen xisbiga raysna wuxuu ku soo beegmay isla xilligaas ku soo beegmay. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحال dadka dadweynaha madasha yimi waxaan leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa awqaadka aadaatihiin dadweynaha dhalinyarada dumarka bacda miidiyaha iyo xildhibaanada oo ah ujeedadeenu isugu nimid dhammaantiinba waxaad iga mahadnaqayaa sida quruxda badan ee sharafta badan ee aad u timaadeen usoo cabirteen caawayso maantiito مدرسة كذا. نبغى نقول أن واحد طيب يديش واحد وقتين واحد ويان واحد وجه ذا واحد وقتين واحد يسوي ما تهلك واحد يسوون مي إن الصوش عينه طبعا اللبان أو كله أو كتير أور الرئيس بقمة بورما مركي ورا سجال بالصوش عينه marka imika maqlawdo 10 kan waxay noqonayaan 19 taa macnaheedu ma aha laba dhiman labadii waan weynay ma macnaheedu waxa weeyaan mar horena waan ka hadalay haweenka ayaanu sida saddex xubnood haweenku way gabeen labadoodii xubnood weli waan sugaynaa ragii waa taglaanay hadda qaadan weydaan sida soo qaadan weydaan
ولا بوريا رجل ديار بيوي إن لبض حنود تكقاتان وعن شاء الله إن صوب عدان أو لبض حنود صوب عيسى سلوا رصاصا وشوغان رجي وتغيير أنا xildhibaanada aan idhaahdo hal cabo inkastoo in badan waana badan loo soo jeediyey waxa weeyaan soo bixitaankiinu wuxuu ku xidhayay gacantiina inta soo baxdayna kolley wuu sarki doonaa iyo intii dhacday intaba waxaad u socotaanna waxa weeyaan inaad gobolkiina iyo degmadiina aad hagaajistaan ma aha inaad wax boobtaan maaha inaad wax dhacdaan maaha inaad wax haddaan waana ogaataan in dadkii sugayo oo aad keentaan wixii kuwii hore ay sameeyeen wax ka badan